raxmadda dunida. barnaamijkan raxmadda dunida ayaan waxaan diradda ku saaraynaa dhaqamadii iyo tusaalooyinkii ugu wanaagsanaa ee nebigeena Mustafa sallallahu alayhi wasallam, waayo waxa uu ahaa jaamacaddii oo qof ah, tusaalihii ugu wanaagsanaa oo qof ah, barbaarintii ugu cajiibsanayd oo qof ah, raxmaddii dunida oo qof ah, iyo caalamkii oo dhan oo qof ah. waxaana ugu talagalnay in ummadda muslimiinta ah, gaar ahaan kuwa ku hadla afka Soomaaliga, inay wax badan ka ogaadaan tusaalahan ugu wanaagsan oo ah raxmaddii dunida Mustafa sallallahu alayhi wasallam. waxaan doonaynaa inaan iswaafajino marxaladihii kala duwanaa ee uu soo maray Mustafa sallallahu alayhi wasallam intii uu noolaa, iyo marxaladaha aan maanta marayno, casrigii uu isaga noolaa iyo casrigan aan haatan nool nahay annaga, oo markaasi gundhig uga dhigayna qur-aanka, axaadiista nebiga sallallahu alayhi wasallam, waxyaabihii laga soo wariyey saxaabadii Ilaahay ha ka raali noqdee, iyo culimmadii kala duwanaa ee wanaagsanaa, kuwii hore iyo kuwa maanta. waxaana rajaynaynaa in barnaamijkan raxmadda dunida oo ah barnaamij taxane ah inaad wax badan aad ka faa'iidi doonto insha Allah. kusoo dhawaada qaybtii saddexaad ee barnaamijkii raxmadda dunida Mustafa sallallahu alayhi wasallam. maantana diiradda waxaa inoo ah laabqaliinka nuurkii dunidan Mustafa sallallahu alayhi wasallam iyo korriimadiisa. raxmaddii dunidan Mustafa sallallahu alayhi wasallam caruurnimadiisii waxaa ka buuxay dhacdooyin qeexaya ama tilmaamaya in hawshiisu ay weyn tahay, lana kulmayay dhacdooyin dhabbada u xaarayay inuu noqdo qaadaha fariinta culus, gudashada ammaanada iyo hoggaaminta ummaddan. sidaa darteed dhacdooyinka cajiibka ahaa ee dhacay ayaa waxaa ka mid ahaa laabqaliinkii barakaysnaa ashaqu sadr ee lagu sameeyey suubanahayna nabadgelyo iyo naxariis korkiisa eebbe ha yeele. haddaba muxuu yahay ujeedka laga leeyahay hawshani laabqaliinka ah ee raxmaddii dunidan Mustafa sallallahu alayhi wasallam lagu sameeyey? maxayse tahay xigmadda ku jirta inuu ku barbaaro nolol agoonnimo ah iyo rajayba? sidee si aan uga faa'iidaysan karnaa labadan arrimood oo aan kaga dhigan karnaa tusaalaha ugu wanaagsan oo nolosheena ah, caqiide ahaan iyo dhaqan ahaanba? haddaba tilmaanta koowaad, raxmaddii dunidan Mustafa sallallahu alayhi wasallam markii uu 4 sano jiray, isagoo weli la jooga Xaliimatu Sacdiya oo ah hooyadii nuujisay noloshiisii intii badnayd, ayaa maalin isagoo wiila la ciyaaraya waxaa u yimid Jibriil calayhi salaam oo ah malaga waxyiga. sida laga soo xigtay saxaabiga Anas bin Malik Ilaahay ha ka raali noqdee, in rasuulka sallallahu alayhi wasallam u yimid Jibriil calayhi salaam isagoo caruur la ciyaaraya, markaasuu qabtay oo lagday oo intuu qalbigiisa jeexay ka soo bixiyey cadyar, oo markaasuu ku yidhi, tani waa dheeftii shaydaanka kugu lahaa. kadib waxa uu ku dhaqay qalbigiisa biyo zamzam ah oo ku jiray weel dahab ka samaysan. markii uu dhaqayna kadib booskiisii ayuu dib ugu celiyey. wiilashii la joogay suubanaha, nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee, iyagoo ordaya u yimi reerkoodii oo ku yidhi, Muxamed waa la dilay. markaasay u yimaadeen isagoo midabkiisu isbedelay. Anas ayaa waxa uu yidhi, waan arki jiray raadka uu ku reebay tolliinka qalliinkii laabtiisa lagu sameeyey. markaasi ayay reerkii go'aansadeen inay hooyadiisii dib ugu celiyaan, wayna u celiyeen. haddaba sidee ayay u dhacday dhacdadan laabqaliinka ah? arrintan ayaa waxaa sugay werino koox ah oo saxiix ah in malaga waxyiga ee Jibriil calayhi salaam uu fuliyey howlgalkan laabqaliinka ah ee raxmaddii dunidan
mustafa sala allahu calayhi wasalam lagu sameeyey lagana soo bixiyey qalbigiisa laguna dhaqay biyaha zamsamka ah kadib markii qalbiga gudihiisa laga saaray cadkii shayddaanka uu ku lahaa dabadeed laga buuxiyey xikmad iyo iimaan haddii aan sidaa la yeeli lahayn waxa uu noqon lahaa raxmaddii dunidan mustafa sala allahu calayhi wasalam mid jeclaysta noloshan adduunyada isaga oo haddana ah rasuulkii xaqa ahaa sala allahu calayhi wasalam waana dhacdo xaqiiqa ah oo dhacday oo sugan haddana qeexaysa inuu alleh subxaanahu wa tacaala u diyaarinayay arrin aad u weyn uu dunidan ku soo kordhinayo annaga waxaa waajib nagu ah haddii aan nahay muslimiin arrintani ku saabsan dhacdadan iyo wixii la mid ah oo mucjisooyin ah oo sugan inaan rumayno oo aan aaminno sidiinu loogu soo wariyey oo saxiixa ah middaana waxa ay ka mid tahay calaamadaha iimaanka dhabta ah daliilaha kale ee dhacdadan xambaarsan tahay ayaa waxaa ka mid ah waxay kulmisay sharaxaad dareen ee laabqaliinka rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo sharaxaad macnawi ah oo salka ku haysa daahirinta qalbiga suubanaheenna nabadgelyo i naxariis eebbe korkiisa ha yeelee daahirinta nafsadiisa wuxuuna noqday nebi mutahhir ah oo ka daahirsan wax walba oo xumaan ah iyo gaarsiiyo wanaagsan isaga oo ku sifoobay tilmaamo aad u wanaagsan oo ah kuwa muuqda iyo kuwa qarsoonba siduu allah ku qiray qur-aankiisa oo uu yidhi alam nashrax laka sadrak miyaynan laabtaada nuurin micnaha miyaynan qalbigaaga nuurin oo miyaynan ka yeelin mid fasiix ah soo dhoweyn leh oo waasac ah tilmaanta labaad kadib raxmaddii dunida mustafa sala allahu calayhi wasalam hooyadiisii aamina ayuu la noolaa ilaa 6 sano uu ka gaaray markii uu 6 sano jiray ayaa hooyadiisi aaday magaalada madiina si ay u soo booqato qabriga saygeeda cabdullaahi iyadoo la socdaan sodogeeda cabdulmutalib jaariyadeedii ummu ayman iyo raxmaddii dunida mustafa sala allahu calayhi wasalam bil ayay soo joogeen madiina kadibna dhammaantooda way soo laabteen hase yeeshee markii dhexda la marayo ayay raxmaddii dunida mustafa sala allahu calayhi wasalam hooyadiisii xanuunsatay kadibna way geeriyootay waxaana lagu xabaalay meel la yidhaahdo abwaa oo maka iyo madiina u dhaxaysa halkaasi ayuu nebiga sala allahu calayhi wasalam ku noqday agoon iyo rajayba waxaana ka faala qaaday awowgiisa cabdulmutalib oo uu aad u jeclaa aadna u dhaqaalayn jiray marna uma oggolaan jirin inuu keligiis ahaado carruurtiisana aad ayuu uga jeclaa ibnu isxaaqa ilaahay ha u naxariistee ayaa waxa uu yidhi cabdulmutalib ayaa gogol loo dhigi jiray kacbada agteeda carruurtiisana waxay fadhiisan jireen gogasha hareeraheeda ilaa uu aabbahood ka yimaado cidna kuma fadhiisan jirin xushmadda aabbahood awgeeda raxmaddii dunida mustafa nabadgelyo i naxariis korkiisa ha ahaatee ayaa isagana waa uu imaan jiray markaasi ku fadhiisan jiray gogasha awowgiisa adeeradiisa ayaa ka reebi jiray inuu sidaa sameeyo awowgiisa ayaa waxa uu yidhi daaya wiilka aan awowaha u ahay waxa uu xambaarsan yahay arrin weyne firaashkii ayuuna la fadhiisan jiray dhabarka ayuuna ka salaaxi jiray waxa uuna mar walba ku dadaali jiray inuu sameeyo waxa indhihiisu ay ku qabuusadaan hase yeeshee 2 sano kadib markii uu raxmaddii dunidan mustafa sala allahu calayhi wasalam 8 sano jirsaday 2 bilood iyo 10 maalmoodna u raacday ayuu awowgiisana geeriyooday wuxuuna markii uu dhimanayay kala dardaarmay adeerkiisa abutaalib oo ahaa raxmaddii dunidan mustafa sala allahu calayhi wasalam adeerkiisa kadibna waxaa raxmaddii dunidan mustafa calayhi salaatu wassalaam kafaala qaaday adeerkiisa abutaalib oo uu la joogay ilaa uu ka hana qaaday إنها علاماته يا أبا طالب فاحرص على محمد احرص عليه ما دام فيك عين تطرف واحميه haddana waxaynu eegaynaa nolosha korriimada raxmaddii dunida mustafa calayhi salaatu wassalaam
raxmadii dunida Mustafa calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku soo koray nolol agoonnimo ah oo labadiisa waalid waxay geeriyoodeen isagoo ilmo yar ah. Aabihiisa markii uu geeriyoonayay uurka hooyadiis waxa uu ku ahaa 2 bilood. Hooyadiisa markii ay geeriyoonaysayna waxa uu jiray 6 sano. Waxa uu dhadhamiyay xanuunka iyo qaraarka agoonnimada iyo waalid la'aanta, waayo wuxuu aad ugu baahnaa naxariista labada waalid iyo daryeelkooda. Sida la wada ogsoon yahayna, carruurta waxay korriimo fiican helaan marka labadooda waalid ay wada joogaan, helaana nolol korriimo oo ka buuxdo naxariis, daryeel, dhimrin, jacayl, toosin, hagid iyo wixii la mid ah. dabadeedna mas'uuliyadda raxmadii dunida Mustafa sallallahu alayhi wasallam waxaa la wareegay awowgiisa Cabdulmuttalib. sidaan horey u soo sheegnay, aad ayuuna ugu naxariisan jiray, aadna wuu u jeclaa. dabadeedna waxa uu geeriyooday raxmadii dunida Mustafa sallallahu alayhi wasallam oo jira 8 sano. dabadeedna waxaa mas'uuliyadiisa qaaday adeerkiisa Abu Taalib. raxmadii dunida Mustafa nabadgelyo in naxariis korkiisa Allah ha yeele, carruurnimadiisa waxa uu ku tilmaanaa dhaqan aad u wanaagsan oo aad u sareeya marka uu carruurta la joogo ama uu la ciyaarayo. agoonnimada rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxay keentay inuu la barbaaro samirka, u dulqaadashada xanuunada nolosha, waxyaabaha uu dhibsado, inuu naftiisa ku tiirsanaado, barashada inuu ku noolaado sida dadka loogu naxariisto, si la mid ah sidii isaga ugu baahnaa markii uu ku jiray noloshii agoonnimada. loo jeclaado, loo garab istaago, loo caawiyo iyo weliba sida dadka loo cafiyo. waxaana ogsoonahay in qof waliba oo bini aadam ah inuu u baahan yahay dhammaan waxyaabahan aan soo sheegnay oo dhan. tusaalaha ugu wanaagsanna oo ah raxmadii dunida Mustafa sallallahu alayhi wasallam uga dhigano tusaalaha nolosheena. qaybtan saddexaadna halkani haynoo joogto. waa Maxamed Cali Juxa oo idinku dhaafaya. salaamullaahi calaykum.